madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku maray gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa saaka subaxnimadii hore si diiran loogu soo dhaweeyay magaal ganacsiyeedka degmada Togwajaale waxaana duleedka waqooyi si diiran ugu soo dhaweeyay wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka degmada Togwajaale intaasi kadib madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka Gabiley ka degmada Togwajaale ayaa xaafadaha bariga si wada jir uga dhagax dhigay xarun loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka isla markaasina ay hirgelinayso dhismaheega dawladda hoose ee degmada Gabiley waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay ahmiyadda ay xaafadaha bariga u yeelanayso MCH kan maanta laga dhagax dhigay xaafadaha bariga maayir ku-xigeenka degmada Togwajaale Mursal Nuux Ismaan gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley mudane Maxamed Aamin Cumar Cabdi iyo barasaabka gobolka Gabiley mudane Maxamed Xaaji Axmed Indhabala mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii aad iyo aad baanu madaxweyne ugu faraxsanahay maanta inaad halkaan noo dhagax dhigtaan mashruucuna inuu intaa ka sii siyaadi doono saw maayirku maamul daadajinta u sameeyay inaad garoonka iyo insha Allah ay muxuu ahaayay iskuulada aad noogu deeri doontaan baanu insha Allah Ilaahay ka rajeynaa kormeerkii aynu maanta aad ku sameeynasay gobolka Gabiley qaybta maamul daadajinta iyo halkan aynu joogno waxaynu ka dhagax dhigi doonaa xanaanadii labaad ee hooyadii iyo dhallaanka ee yeelato magaalada Wajaale halkan aynu ku dhagax dhigayno MCH-kii runtii degmada Wajaale mudane madaxweyne degmada Wajaale waxay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn gobolka inaanu qorsheynay in mashruuca maamul daadajinta laga soo bilaabo degmooyinka aan isqaadi karin si nolosha gobolku ay noqoto mid isla jaan qaada allay badan iyadana qayb laga qaban doono saddexda degmo kalena iyagana qayb laga qaban doono Khadar Cabdi Cabdilaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaala ganacsiyeedka degmada Togwajaale